ururka wacyigelinta caabuqa coronavirus ee magacooda la soo gaabiyay wayo ayaa maanta waxay kulan la yeesheen kusimaha gudoomiyaha degmada Walaweyn Mudane Maxamed Cabdullaahi Koosto. Kulankan ayaa looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa caabuqa corona ka oo ay sheegeen inuu farabaan ku hayo dadweynaha ku nool degmada Walaweyn. Ururka ayaa sheegay inay jiraan dhowr qof oo u dhinteen calaamadaha caabuqa corona. waxay dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu baaqeen in si degdeg ah u soo gaarsiiyaan dhammaan agabkii looga hortagi lahaa isla markaana ay sameeyaan baaritaanada caalamiga ee loo yaqaan black test. maalmihii dambeeyay ayaa waxaa jiray dhaqdhaqaaq badan oo looga hortagi lahaa caabuqa coronavirus. waxaan meeshan ka cadaynaynaa in degmada Walaweyn aan ka helnay bukaano badan oo leh calaamadaha lagu yaqaan coronavirus ama COVID-19 calaamadaasna ay ka mid yihiin coughing-ka, difficult breathing-ka, sneezing-ka, all of them inaan ka confirm gareynay aan ka helnay. insha Allah taala waxaan baaq u direynaa dhammaan wasaaradaha caafimaadka ee dawladda Soomaaliya ha ahaato Koonfur Galbeed iyo midda federaalka. waxaan leenahay insha Allah taala hiya waxa ka helnay COVID-19 insha Allah taala waxa dhiman kaliya doorkiini ama qaybtiini oo ah in la confirm gareeyo ama blood test laga qaado saasna lagu ogaado COVID-19. halkaan maanta waxaan rabnaa inaan ka sheegno ama aan ku baraarujino labada dawlad inay nagu caawiyaan qalabkaas oo lagu baari doono ama lagu baari karo oo COVID-19 waayo waxaa ka helay dad badan oo dhinteen naqaskaasna wuxuu kamid ahaa calaamadaha COVID-19 kuleelka hadalkeena waxaan kusoo gabagabeyn doonaa in anaga aan rabno ama aan ku codsanayna dawladda inay qalab noo soo dhiibaan. sidoo kale kusimaha gudoomiyaha degmada Walaweyn Mudane Maxamed Cabdullaahi Koosto ayaa isna sheegay in aan shaki ku jirin in Walaweyn ka jiro coronavirus. gudoomiyaha ayaa sheegay inay jiraan dhowr qofood oo ay u dhinteen neef xiranka taa oo ay ka mid tahay caabuqa corona. ugu dambeynna wuxuu dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu baaqay inay soo gaarsiiyaan agabka baaritaanada. aniga runta marka idin sheego Walaweyn waxaan xaqiijinayaa inuu ka jiro cudurka coronavirus sababtoo ah waxaan deganahay degmo istiraatiiji ah u jirta magaalada Muqdisho 90 kilomitir oo maalinkii waxaa safarta in ka badan 25 baabuur aad Muqdisho waxayna ku soo laabtaan Walaweyn. waxaa kale ay degmada Walaweyn marin u tahay 3 gobol ee Soomaaliya Baay, Bakool iyo Gedo. marka oo labadan isbuuc ee la soo dhaafay degmada waxaa ka dhacday in 9 qofood oo isku xigta ay u dhintaan naqas ama neef xiran. markaan aragnay dadkii dhimanaya cid kasta dhimatayna markaan sii dabagalna la leeyahay waxay u dhinteen oo naqas ama neef xiran ay u dhinteen. marka waxaa is dhahnay arrinka wuu soo kordhaya oo waxaan rabnaa marka inaan gaarsiino wasaaradaheena caafimaadka, wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka federaalka iyo dhammaan hay'adaha shaqada ku leh caafimaadka. waxaan leenahay Walaweyn waxay u baahan tahay in qalab caafimaad la keeno la baaro arrinka aniga shaki ma gelinayo waan xaqiijinaa inuu ka jiro Walaweyn waan arrinaan leeyahay shaki kuma jiro waa inuu coronavirus Walaweyn uu maanta ka jiro. sidaa daraadeedii waxaan leeyahay dhalinyaradii arrinkan wacyigelin badan ka geysatay waa ku mahadsantihiin. sidaa daraadeed laga bilaabo maanta dadka heer Walaweyn waxaan kaga digaa in ay ka taxdiraan cudurka coronavirus sababtoo ah waa cudur safmareen ah oo adduunka dhan dadkiisa dhibaateeyay annagana waxaan ka mid tahay adduunka maanta ayaan ka mid nahay. sidaa daraadeed inay ka taxdiraan oo nadaafadda ku dadaalaan ay kala dheeraadaan. waxaan leenahay dhalinyarada noo soo baxdayna waxaan idin leeyahay wacyigelinta sii badiya xoojiya. Cabdiqani Maxamed Xasan Walaweyn.